caasimadda maamulka Puntland waxaa maanta si rasmi ah looga howlgeliyay ciidamo cusub oo loogu magac daray ciidanka tayeenta amniga caasimadda Puntland. Howlgaladan ayaa waxaa lagu beegsan doonaa sida la sheegay hubka sharci darrada ah ee lagu dhexsato magaalada Garowe. ciidamada xilliga aysan shaqada ku jirin ee hubka ku dhex qaata gudaha magaalada, dhalinyarada ku howlan falalka ammaanka lagu waxyeeleynayo, soo celinta bilicda magaalada iyo rarista marfishyada iyo kabarada qaadka ee lagu iibiyo goobaha faris magaalaha u ah magaalada Garowe caasimadda Puntland. amarkan ayaa waxaa shixiyay taliyaha ciidanka booliska Puntland General Muxyidiin Axmed Muuse. dadka si wanaagsan ula dhaqma. tan kale waxaan ka hadlayaa dadka qoryaha wata ama baabuurta wata lama ogolaanayo qori sharci darro ciidanka doontay ahow magaalada lagu marayo lama ogola marka laga reebo ciidanka shaqada ku jira. ninka mas'uul la socda hadduu mas'uulkii saaran yahay gaariga waa gaar, laakiin haddaan mas'uulkii la socon intuu guriga tago soo aado halkaa meesha qayilaada soo aado waa la qabanaya, waa dambiile. tuuta xataa in lagu soo aado mamnuuc wey. tuuta in lagu soo aado oo suuqa lagu soo aado oo meel lala fadhiista qayilaad mamnuuc wey. waxay ka mid tahay amni xumada waxyaabaha leen. waxaa la qabanayaa wax kasta oo dhaqan xumo ah, waxaa la qabanayaa wax kasta oo mukhaadaraad ah, waxaa la qabanayaa taarika la'aanta baabuurta, taarika la'aanta waa la qabanaya. baabuurta taarikooyinka aan sax aan ahayn oo mid hoos geliya oo mid galaya oo kala bedela waa la qabanaya. wax kasta oo sharciga wuxuu dhimaya ciidan taraafika baa in la shaqeynaya waa la qabanaya. kuwa aan cashuurayn waa la qabanaya. waxaan rabnaa meesha inay ka soo baxdo shaqo hufan oo nadiif ah. si kastaba ha ahaatee duqa degmada Garowe, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Nugaal, taliyaha ciidanka booliska, taliska daraawiishta iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda amniga iyo DDR Puntland oo si wada jir ah u booqanayay goobta laga hirgelinayay ciidanka ku jira howlgalka ayaa waxa ay ku booriyeen in ay dhowraan anshaxooda isla markaana xuquuqda shacabka aysan ku xadgudbin. waa markii ugu horeysay ee magaalada Garowe laga hirgeliyo ciidanka tayeenta caasimadda, waxaana laga dhursugayaa ciidamadan inay wax ka bedelaan xaaladaha amni ee caasimadda Garowe.